بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داوديال مeel kasta oo dunida dacalada ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo waraysi aan kula yeelan doono Yunis Cabdiraxmaan Yunis oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha xarunta hal abuurka Boorama oo ku taala magaalada Boorama Yunis ku soo dhawow TV-ga gobonnimo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دواه ولال أدي أدود ما صنتهاي بقشة نقطة معدن حرونت بورما إنوفيشن هاب أما حرونتها الأبوركا كنت هلا مجال بورما يونس مركه هره waxaad warbixin naga siisaa xaruntan goormaad aasaasteen maxay tahay ujeedadaadu aasaasteen walaal ma xasantahay xaruntan waxaan aasaasnay sanadkii hore 2012 bishii saddexaad 19 waxa weeye cabsalaan haddaan su'aasha ka jawaabo ujeedkaad u aasaasteen markaan ogaanay in baahiyo badan uu ka taagan tahay magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal baahiyahaas ay ka mid yihiin in ayna dhalintii haysan meel ay wax ku akhristaan in wax weeyaan aan sidoo kale lahayn meel qofkii hibo leh hibadiisa uu ku soo bandhigi karo sidoo kale in aan san jirin meel public lectures oo dad in lagu soo casuumi karo waaye araga oo khibrad lagu wadaagi karo aysan jirin markaanu aragnay meelo wax weeye inay baahi weyn loo qabo in hal abuure la helo magaalada wax weeyaan Boorama dad dhalinyar hal abuurka u saaxiiba wax weeye in la helo taasaan nagu kaliftay in aan sameeyno xaruntan oo baahi weyn loo qabay runtii Yunis maxay tahay haddaba xaruntani shaqooyinka ay qabato waa maasantahay walaal cabsalaan su'aasha haddaan ku sii socdo waxyaalaha ay qabatay xaruntan aad bay u far badan tahay haddii dhowr ka mid aan kaaga warramo waxaa ka mid kow in tababaro aan ku qabanay lagu kobcinayo waxa weeyaan capacity building loogu samaynayo dhalinyarta waxa weyn cilmigoogii ay barteen cilmi kale loogu darayo maskaxdoodana loo korinayo sidoo kale waxaan qabanay wax loo yaqaano toddobaadka hidaha iyo dhaqanka kaasoo dhalinyar badan oo hal abuuro oo inama iyo wiilal iskugu jiray ay ku soo bandhigeen hibadoodii ku salaysnayd suugaanta saddex waxaan qabanay in aan dhalinyartii siinay meelo ay ku akhristaan duruustooda yoomiga ardayda jaamacadaha maysan haysan meel ay wax ku akhristaan oo free kursi iyo miis iyo light iyo biyo iyo wax walba helayaan xaruntu waxay ka kooban tahay 9 qol 9ka qolba wala buuxiya dabcan xilliga wax imtixaanadu soo dhow yihiin wax weeyaan taasina waa mid number 4 waxaan qabanay wax loo yaqaan public lectures ama public talks inaan soo casuunay dad PhD ama double master ama wadan kale ka yimid oo ay la wadaagaan khibradooda waayo aragnimo iyo cilmiga ku duugan sidoo kale waxaan qabanay inaan tartanno aan martigelino tartanadan ilaa hadda martigelino waxa kamid ah tartanka maqaal qorista maqaal ama article sidee loo qoraa qaabka loo qoro tartan fiican ayaa ka dhacay dabcan xaruntu way martigelisay tartankaas oo wax weeyaan laba urur oo Birmad iyo CAA la yiraahdo soo agaasimay laakiin anagu waa martigelinay sidoo kale waxaan qabanay tartan oo martigelinay tartan suugaaneed oo habla u qaasa haweenka u qaasaha sidoo kale waxaan qabanay in qof buug qoray ku soo bandhigi karo oo waxa weeyaan qofkaasi reading forum wax loo yaqaano in waxa qof aqoon-yahan buugii uu qoray uu ku soo bandhigi karo xarunta isagoo la wadaagaya soo koobayana dhalinta ka soo qayb gashay sidoo kale barnaamijyo kale oo hooste gareynay baa jiray oo ahaa bunya buugaas oo kale ilaha soo dhanba waxa weeyaan waxyaalaha ay xaruntu qabatay muddada 8 bilood ay furan tahay Yunis waxaad sheegtay inaad qabatiin tababaro kale iyo barnaamijyo kale qaab noocee ayaad u qabatiin barnaamijyada aad sheegayso bal haddii dadweynaha aad faahfaahin ka siiso qaabab kala duwan baan u qabanaa barnaamijyada ama tababarada iyo barnaamijyadaba
tababarka waxaan u qabanaa kolley waxaan ugu talagalnay inuu tababarkaasi noqdo capacity building maadaama capacity building yahay cidda ka soo qayb galaysaana ay tahay arday hadda dhigata jaamacadda waxaan ugu talagalnay wax yaroo fudud baan ka qaadnaa oo shahaadada iyo macalinkaan u qaybino iyo waxa weeyaan facility-ga maalinka waan soo xayeysiinaa way soo xareystaan ilaa 60-70 dhalinyaro kadib macalinkii baa soo diyaariya matalan kuwan qabanay waxaa ka mid ah M&E-ga oo aad loogu baahan yahay communication skills-ka personal development-ga marka macalinkii markuu yimaado hadduu Hargeysa joogo iyo hadduu Boorama joogo waan soo invite garaynaa kadib macalinka 2 ilaa 3 cisho dhalinyarta u qabta barnaamijyada qaabkaan u qabanaa qaarna xaruntaan ku qabanaa qaarna waxaan la tagnaa hoteelada waaweyn xaruntu kulley hool bay leedahay ilaa 80 qof gaadha marka haddaan u aragno barnaamijkaasi inuu ka badan karo 80 qof waxaan la tagnaa hoteelada waaweyn hoolasha waaweyn ilaa dhowr boqol oo qof qaadaya kuwaasoo aan soo agaasino haddii ay xarunta ku filan tahayna isla xaruntan ku qabsanaa inta badan tababarro iyo barnaamijyo badan baad qabatay tusaale ahaan macallimiinta tababarka bixiya ma xaruntii ka tirsan yihiin mise meelo kale aad ka keentaan ood ka soo casuuntaan waa jiraan laba nooc bay noqdaan kolley xarunta macallimiin badan ma leh laakiin tababar mid iyo laba qof xarunta ka tirsan uu qabtaa waa jiraan laakiin inta badan waxaan ka soo casuunaa jaamacadaha dalka Hargeysana waanu ka soo casuunaa macallimiin baa Hargeysa nooga timaada oo tababar ka bixisa sidoo kale macallimiin baa jaamacadaha ku taala ku yaala Boorama aan uga yeedhanaa oo aan ku tuhmayno in ay wax u faa'iideyn karaan dhalinta macallimiintan ilaa hadda ka soo casuuminay ku soo casuunay tababarada waxay ka socdaan matalan tusaale ahaan haddaan ku siiyo ustaad Abdeeq Xasan Cawaale oo ka socda jaamacadda Hoon iyo ustaad Naafic Maxamed Qaadi oo ka socda jaamacadda Gulis sidoo kale Hargeysa waxaan ka soo casuunaa macallimiinta ka soo casuunay waxaa ka mid ah Maxamed Cige oo ka socda maxadka Mindset waxaa sheegtay barnaamijyo badan inaad qabateen oo kii dhaqanka uu ka mid yahay tababarada uu ka mid yahay waa hawl aad u ballaaran oo aad u baaxad weyn dhaqaale ahaan yaa inaga caawiya maxayadaad ku tiirsan tihiin mise inakum baa weli la halgama xagee dhaqaalaha ka heshay waa su'aal muhiim ah ilaa hadda barnaamijyada aan qabanay waxa weeye wax hay'ada oo naga caawiya ma jirto wax local NGO haday tahay international NGO labadooda midna nagama caawin waa waxaan anagu isku geegeysanay oo jeebkayaga dhalinta aan isku geegeynay baan ka sameynay ilaa hadda cid aan ku tiirsanahay ma jirto xarunta iyo asxaabta ku hareersan unba wada sida aad horey u soo sheegtay de baahi baa keentay in xaruntan la aasaaso ma isleedahay baahidii jirtay magaalada Boorama xaruntu way kaafisay mise weli waxbaa dhiman baad isleedahay markaan baahi aragnay ka jirta gobolka ayaan xarunta u furnay baahidii waxaan qabaa 100% weli manu kafeyn oo weli baahiyihii way taagan yihiin fursado inaan abuurnay waa suurtagal laakiin ilaa hadda baahiyihii way taagan yihiin oo waxa weeyaan weli manu gaadhin ujeedkii aan u furnay ama yoolkii aan lahayn 20% manu gaadhin ma filayaa saas aawadeed weli baahidii way taagan tahay dadkiina waa xaruntuna waa koraysaa fursaduhuna waa badanayaan weli ilaa hadda somehow waxna waan daboolnay waxna weli manu daboolin waxaan ku tala jirnaa sanadada soo socda insha Allah inaan la bilaabno juhdiga iyo majhuudka aan bixinayno si aan wax badan oo la taaban karo wax weeyaan baahiyaha u dabooli karno ilaa iyo inta imika xaruntu jirtay maxay yihiin caqabadaha inaga hor yimiday ee aad sharaxi kartaa kulli dabcan caqabado waa jiraan sida caqabadaha looga gudbaana waa adag tahay alxamdulillah ilaa hadda caqabadihii naga hor yimid waanu ka gudubnay qaarkood waxa ka mid ahayd xarunta kiradeeda iyo waxa weeyaan hawlaheega oo dhan expenses-keega
hadda qaar ka mida waan ka gudubnay oo taasi caqabad bay nagu ahayd xaruntan saan sheegnay 9 qol ka kooban baaxad weyn leh de meel weyn ku fadhida kiradeeduna iska qaali ay ahayd ilaa hadda waan ka gudubnay taas oo wax naga kafaala qaaday dawladda hoose Boorama in ay bixiso kirada xarunta xabadaas waan ka gudubnay caqabada labaad ee hortaagan waxa weeye mararka qaar waxaan rabnaa inaan qabano public lecture oo wax loo yaqaano in qof khibrad leh ama lagu tuhmayo inuu aqoon-yahan yahay sideed u keeni kartaa si uu la wadaago aqoontiisa iyo khibradiisa ummadda marka dadkan soo casuumayno magaalada jooga waa adag tahay inuu ku aqbalo oo waxa weeyaan uu u faa'iideeyo qofka walaalkii aad bay u adag tahay marka taa laftigeeda weli caqabad taagan weeyaan weli ma nubislaan oo bulshadu ma bislaan si ay waxa weeyaan khibradaha iyo aqoonta aad waxa weeyaan aad ula wadaagi karto qofka walaalkaaya taasina waa caqabad iyadna weli la hadda taagan mararka qaar dooda yaan isnaanaa togan oo aan turxaan lahayn inaad qabataan dadkaad ku casuumi lahayd intaad soo casuunto aad weydaa suurtagala oo barnaamijkii halkaa ku kala oo caqabad kaga timaado marka waa iska jiraan caqabado badan kolley waa badan yihiin insha Allah waxaan rabnaa ilaahay inaan ka baryana inuu mataqaanaa nagu asturo oo caqabada aan wax weeyaan ka gudbi karo muxuu yahay qorshaha mustaqbalka fog iyo kan dhow ee xarunta Boorama Innovation Hub mustaqbalka dhow waxaan rabnaa inaan barnaamijyada sii xoojino si la bilaabno si aan u gaadhno mustaqbalka fog oo ah in dadka hal abuurka leh hal abuuradaasi kala duwan ama ha noqdo mid ganacsi ama ha noqdo wax weeyaan mid fikrad ganacsi ama ha noqdo mid teknolojiyad ama ha noqdo mid suugaaneed in loo heli karo maalgelin ay waxa weeyaan ku sii wadi karaan hal abuuradooda kuna samaysan karaan businessyadooda waxa weeyaan haday suugaan tahayna suugaantooda maalgelin ay waxa weeyaan ama buug ku qori karo looga maalgelin karo ama waxa weeyaan meel ku soo koobi karo hadii uu fikrad ganacsi hayana fikradda ganacsi loo maalgelin karo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay incubator noqoto taasoo maalgelisa dhalinta fikradaha ganacsi ee la xiriira technology-ga iyo ganacsiga iswata wata inaan maalgelin loo heli karo ya ah hadafka ugu dambeeya isleenahay wad gaari doontaan insha Allah de qaaradeena ama guud ahaan deegaanada Soomaalida ama Somaliland oo kale waxa ka jira xarumo barnaamijyada noocaas qabta xaruntaadu maxay kaga duwan tahay xarumahaasi xarunta hal abuurka ee Boorama waxyaabo badan bay kaga duwan tahay yaan oran karaa kuwa ku yaala Hargeysa ama Burco kuwa Hargeysa laguma soo bandhigo hal abuurada suugaanta waxa weeyaan kaliya waxay ku shaqeeyaan hal abuurka ganacsiga sidoo kale hal abuurada teknolojiyadda team laguma sameeyo macnaha anaga halkan waxa jirta in aan wadno in tababar la siiyo ardayda IT-da ah si ay u noqdaan dad innovation ku leh dhanka teknolojiyadda qolooyinka kale ama xarumaha kale qofkii oo iska yaqaan oo ready iska yaqaan oo hal-abuur ahaaba ku tartamaya balse anagu inaan dad sameeyno oo marka hore sameeyno hadii jiraan way ku soo bandhigi karaan hadii san jirinna in anaga aan abuurno tiimam technology-ga noocyadiisa kala duwan leh oo iyagu marka dambe noqda hal abuur marka anagu fikirkiina waan qabanaa sidoo kale dadkiina waan sameeynaa si ay u noqdaan hal abuurayaal Yunis ugu dambeyn maxay tahay bulshada fariinta aad u dirayso ama codsiga waxaan halkan ka diri lahaa laba fariimood mid waxaan u dirayaa dhalinta midna waxaan u dirayaa kulay cidii waxa weeyaan uu la xiriiro barnaamijka xaruntan ku hayno kan dhalinta u diraya waxa ay tahay haddii aad tahay hal abuure ama aad rabto inaad noqdo qof hal abuur leh xarunta Boorama Innovation Hub waxa kugu diyaara intaasoo qol intaasoo room intaasoo dad oo ka caawin doona inaad hal abuurka ku soo bandhigi karto
haddii aad rabto marka inaad hal abuuro noqotona waxaa kugu diyaara dad ku hagi kara oo waxa weeyaan ku jihayn kara guidelines ku siin kara si aad hal abuuro noqoto oo waxa weeyaan nolosha aad meel dhigan karto sidoo kale waxaan halkan talabaadan u diray waxa weeye local NGOs ka iyo international NGOs ka qofkii in uun ama ururkii ama hay-adii barnaamijyada aan ka wadno danaynaya inay nagula soo xiriiraan kolley waxa weeyaan page baan leenahay Facebook hadday tahay waxa weeyaan in page-ka nagala soo xiriiraan si aan iskaashi u sameeyno iyagana interest-kooga aan u fulino dhalintii gobolka mataqaana ku nooleydna ay uga faa'iideystaan fursada aad haysaan yacni in anagu mediator-kii noqono oo wixii aad soo wadeen ama si dhexmarsaan si dhalintii ay u gaadho ama santi daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeranaa barnaamij gaar ah oo waraysi aan kula yeelanay Yunis Cabdiraxmaan Yunis oo ah gudoomiyaha iyo aasaasaha xarunta hal abuurka Boorama waraysiga waxaan la socodsiinayay anigoo Cabdisalaan Cali Ismaaciila kuna magac dheer Cabdisalaan Suldaan dhinaca kamarada waxa ii joogay Maxamed Qaamuus halka aad ka daawanaysiina waa Gobonnimo TV intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan iga teganaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh